sanadkii 1966 waxbarashadiisa hoose dhexe iyo sare wuxuu ku qaatay gobolka Banaadir sidoo kale madaxweyne Dani ayaa ka baxay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed wuxuuna bartay kulliyadda culuumta luqadaha waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda ayuu ku soo diyaariyay dalka Malaysia wuxuuna siyaasadda Soomaaliya xoog ku yeeshay sanadihii ugu dambeeyay laga soo bilaabo 2002 isagoo ka soo shaqeeyay deegaanada Puntland iyo Soomaaliya wuxuuna noloshiisa u badneed ganacsade wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya ayuu noqday sanadkii 2012 marka uu dalka madaxweyne ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale isla sanadkii 2012 markii uu wasiirka noqonayay waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa mar u soo tartamay madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2016 waxaana la sheegay inay saaxiibo dhow ay yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa ganacsade aan wali dalka ka bixin deegaanada Puntland ayuuna ganacsigiisa ku xoogan yahay waxa la sheegay in shirkado waaweyn oo ku leeyahay dhulka Puntland sidoo kale waxa uu ka mid ahaa dadkii horumarinta Puntland ka qayb qaatay xilliyadii abaaraha Puntland waxa la sheegay inuu xoog ama ganacsatadii ugu waaweyneed ee samata bixinta dadka oo hormud u ahaa shakhsiyad ninkan la doortay ee Puntland dadka yaqaana waxay ku tilmaamaan inuu yahay qof degan oo dabeecad wanaagsan oo dulqaad badan waxayna u arkaan inuu wax badan ku soo kordhin karo deegaanada Puntland iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya sida ay sheegeen dadkii la noolaa ama wax ka yaqaana taariikhda madaxweynaha cusub ee maamulkaasi haddaba waxaan telefoonka magaalada Garowe ee Puntland aan kula xiriiray agaasimaha qaybta warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta ee maamulka Puntland Cabdirasaaq Maxamuud oo aqoon u leh madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland waxaan weydiiyay bal inuu faahfaahin iga bixiyo wixii uu soo joogay oo xogaalka u yahay madaxweynaha maamulkaasi uu ka yaqaano iyo waxa laga filan karo iyo sida uu wajihi doono siyaasadda Puntland iyo tan Soomaaliyaba bismillahi rahmaani rahiim doorashadii maanta dhacday si amni leh ilaahay mahadii qoraftiga hannaanka Puntland lagu aqoon jiray bay u dhacday doorasho adag oo tartan fiican oo adag in lagu galay oo habka imirada habka culus oo ka qurux badan oo aan dhihi karo cadaalad iyo wax walbana waxa ka afdaa amniga alxamdulilah rabbil caalamiin doorashadaas media iyo social media iyo kala socotaan waxaa la sheegay in caqabado badan ay hor yaalaan oo ay ugu horeyso dhinaca amniga ammaanka Puntland iyo madaxweynahan rajada laga qabo inuu xal u helo dagaalka xuduudaha uga furan dagaalka Daacish iyo Al-Shabaab iyo dhibaatooyin kale ay jiraba way aragnimada aad ku dabaqayo caqabado badan baa jira xagga ammaanka ah oo saddex sano u dambeysay Puntland haystay taasoo u dhacday qaab dayac ah waraysiga hadda aad maqlayseen Cornel Cabdirasaaq ayuu ahaa saaxiibayaal oo idinka raali gelinay halkii aan idinku sheegay agaasimaha waaxda warfaafinta ee wasaaradda warfaafinta waa agaasimaha waaxda warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta ee Puntland agaasimo waa kan waxa la yiraahdaa Suleymaan Saciid Abdullahi Dini kuntii dadku aad bay ugu riyaaqeen markii ilaahay uu siiyay nasiibkiisa loola doortay inuu noqdo madaxweynaha dowladda Puntland waa nin degan waa nin aqoon sare leh waa nin siyaasi ah waa nin xishooda waa nin radiin ah oo alla ka cabsada inta dadku ay ku yaqaaneen oo ay filayaan inuu isbedel muuqda oo Puntland samaashad fara badan oo ragaadiyey iyo caqabado fara badan oo ragaadiyey iyo maamul xumo ku habsatay inuu wax ka qaban doono wixii ay taakiisu gaadhsiiso sida darteed aqoonta dadka reer Puntland ay u qabaan waa nin aqoonyahana waa nin siyaasi ah waa nin degan waa nin akhlaaq leh waa nin fursadaha ka faa'iidaysta markaa soo waajaha intaas weeye aqoonta reer Puntland ay u qabaan madaxweynahooda cusub mudane Saciid Cabdullaahi Maxamed Deni waaya marka Puntland waxaa la yiraahdaa waxay aas u tahay madaxda maamul goboleedyada iyo maamulada oo dhanba xiriirka xume ee kala dhaxeeya dawladda federaalka muxuu ka bedeli karaa xiriirka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ma santahay waxaan isleeyahay
sida dadku ay rajada ku qabaan iyo sida ka muuqatay markii barnaamijyadiisa barnaamijyada uu rabay inuu isku murashaxa uu isaga dhigay ama isku soo bandhigayay waxaa ku jirtay in uu ku dadaali doono sidii puntland ay ugu yeelan lahayd dowladda federaalka xuquuqda ay ku leedahay ay qaybteeda u heri lahayd taa macnaheeda waxaan u farasinanay inuu diyaar u yahay inuu soo celiyo xiriirkii markii hore kala go'sanaa oo kala maqnaa oo u dhexeeyay maamul goboleedyada ee dowladda federaalka sidaa darteed waxaa noo muuqatay in uu damacso yahay inuu qaab kastaba kula shaqeeye maadaama uu carabaabay oo u leeyay waxaan isku dayayaa xuquuqdii puntland laga maqnay dowladda federaalka taa macnaheeda waxa weeye aan wada hadalno waan heshiino waya marka maxaa caqabada u hor yaalla madaxweynaha cusub ee puntland oo ay tahay in uu wax ka qabto culaysyada uu wajihi karo طبعا waxa weeye caqabado fara badan baa jira dhinaca amniga caqabadaha amniga waxa weeye inuu soo celiyo inuu sugo amniga dadweynaha ku dhaqan dhulka puntland inuu adkeeyo nabadgelyada shucuubta ku nool dhulka puntland laba dhinacyada siyaasadda inuu dib u heshiisiin ku dhex sameeyo dadka walaalaha ku dhaqan puntland iyo xataa gobolada kale iyo meelaha xurgufta ay ka jirto in uu kor u qaado arrimaha bulshada dhinacyada waxbarashada iyo dhinacyada caafimaadka marka in uu wax ka qabto musuqmaasuqa ragaadiyey puntland oo caqabada ugu weyn oo mararka qaarkood ay dhici jirtay in la waayo xuquuqda dadka shaqaalaha iyo ciidamadaba marka wuxuu isku dayayaa inuu wax ka qabto marka u horeysa financial management system inuu qaab dhismeed wanaagsan u sameeyo dhaqaalaha iyo maamulka siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadaba intaaba weeye marka dhinaca kale puntland dagaala ku furan oo kala dhexeeya somaliland markaa eegtid madaxweynaha cusub iyo colaada ka jirta dhinaca xuduudda somaliland iyo puntland waa nin nuuce ayuu u wajihi karaabaa isleedahay xaaladda taagan waxaanu u fasiranay inuu yahay nin nabadeed oo isku dayaya in dhulka puntland waxyaabaha ay ka tabanayso walaalahooda somaliland oo dhulka la isku haysto inuu bal marka u horeysa uu isticmaalo siyaasadda codolka warafka lagu dayay oo macnaheedu yahay bal marka u horeysa wadahadalo nabadeed oo siyaasadeed oo ku qatuma in lagu raadiyo siyaasadaha murugsan ee u dhexeeya labada maamul magarat waya gabagabadii su-aasha ugu dambeyso maxay tahay inay ka bartaan koonfurta ama soomaaliya oo dhan doorashadii maanta ka dhacda puntland oo ku cusbaa dadka soomaalida طبعا puntland way labaatan jirsatay wayna ka horeysay dowladda federaalka iyo dhammaanba maamul goboleedyada ka jira soomaaliya waxaana lagu tilmaamaa puntland inay tahay hooyadaha federaalka طبعا puntland waxay mudan tahay in laga daydo nidaamka loo dejiyo doorashooyinka agaasimaha qaybta warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland Saleebaan Saciid Xaaji Nuur ayuu kaasi saaxiibayaal oo telefoonka igu waramayay isagoo puntland ku sugan wuxuuna ila falaqeynayay waxyaabaha laga filan karo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi haddaba caqabadaha ku horgudban madaxweynaha puntland ee maanta la doortay Saciid Cabdullaahi Dani waxaa la sheegayaa inay ugu weyn tahay dagaalada ku furan puntland ee dhinaca xuduudaha oo ugu horeeyo dagaalka al-shabaab iyo daacish kala dhaxeeyo ee dilalka qorsheysan ee xalka loo laayahay ee magaalooyinka waaweyn ee ka dhacay ee puntland gaar ahaan Boosaaso iyo Gaalkacyo colaadda Tukarraq iyo meelo kale arrimahaas oo dhan sidee ayay suurtagal uga tahay inuu ku guuleysto ama xal ugu helo waxaan weydiiyey Colonel Cabdirasaaq Maxamuud
بسم الله الرحمن الرحيم ورسول الله أنت بعد في أبن له يعني المعدي